طبعا سنتين آد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد وحان أقوم هاد علينا يا dadka jaaliyada reer London iyo jaaliyadaha kale ee meelaha kale nooga yimiday munaasabadan isku soo aadiyay halka u soo safray aad iyo aad ayuu maadsan yihiin waa markii labaad hoolkan aan soo istaago intabana muxuu soo dhaweyn aad iyo aad u weyn ayaan labadii marba kala kulannay marka anigii wafdigaygaba aad iyo aad aan u mahad celinayaa waxaan si gaar ah u mahad celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo mar walba yani soo dhaweynteeda iyo qadarinta ay noo hayaan ama dawladnimada iyo dalka ay u hayaan aad iyo aad u ballaaran tahay waxaan leeyahay waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin inta kadib waxaan rabaa si kooban waqtigu waa iska waqti dambe London safarkii hore iyo safarkan way kala duwanaayeen safarkii hore booqasho dawladda Ingiriiska ay ahayd safarkan shir caalami ah oo Soomaaliya ku saabsan ayaa halkan lagu qabtay intii muddaana laga soo shaqeynayay dabcan shirkan waxaan runtii doonayaa horta magac jaaliyadda Soomaaliyeed ee muxuu UK inteedii ugu muhiimsaneed ama magaalada caasimadda deganeed maadaama ay tihiin waanan ugu mahad celiyay haddana hortiina inaan ugu mahad celiyo Prime Ministerka dalkan Mr David Cameron oo runtii uu istaagay yani Soomaaliya sidii uu yani u garab istaagi lahaa oo miisaankiisa iyo culayskiisa oo u saari lahaa in caalamku u soo jeesto Soomaaliya oo dib u soo eego si maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya loo kaalmeeyo waxa laga yaabaa dad badan is weydiiyaan war anagu weligan ma kaalmo un baan joogaynaa laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay dalalka dagaalada sokeeyo galay oo dhan oo burburka ku dhacay taariikhdooda marka dib loo eego adduunyada ma jiro dal kaligiis iska soo saaray dhibaatadii gaartay yani dal walba waxa uu uga soo baxay ama waxa uu kaashaday caalamku ha ahaadaan ama dhammaan iyo wadajir iyo hay'adaha caalamiga ah loo isticmaalo ama dalal saaxiibo ah oo gaar ah ha isticmaaleen markii ugu horeysay maaha dawladda Ingiriiska ay dal sideenoo kala burburay ay garab istaagto oo ay ka soo saarto garab istaagtay sabab u noqday in dhibaatadii uu dalkaas ka baxo kii ugu dambeeyay oo midaalka loo soo qaataa wuxuu ahaa dalka Sierra Leone waad garanaysaan meeshii ay gaartay iyo dhibaatada ka dhacday iyo meesha ay muxuu ahay maanta ay marayso sidaas oo kale ayaa muxuu ahay dawladda Ingiriiska oo Prime Ministerku hormuud u yahay go'aan waxay ku gaartay runtii yani Soomaaliya in la kaalmeeyo safarkii hore oo halkan ku midayna muhiimadiisa waxay ahayday arimahaasaan ka wada hadalno isla garanay maalintaas ayuu ballan qaaday Prime Ministerka in uu Soomaaliya si buuxda u garab istaagi doono waana uu ka dhabeeyay runtii 54 dal iyo hay'ado caalami isugu jira ayaa shalay isugu yimiday shirka halkan ka dhacay runtii yani dhinaca taageerada maadiga ah oo yani lacag ilaa 200 milyan oo dollar gaaraysa ka sokow oo Soomaaliya loo rays gareeyay waxa aad iyo aad uga muhiimsan midda macnawiga ah oo intaasoo dal in ay halkaasi ay ka ballan qaadeen Soomaaliya in ay diplomatic siyaasiyan iyo diblomaasiyan inay u garab istaagayaan oo ay ku garab siinayaan laakiin xaqiiqada dhabta ah maxay tahay faraska biyaha waa dul keeni kartaa laakiin ma cabsiin kartid caalamku wuuna taageeri karaa lacag fara badan wuuna siin karaa qalab badan iyo maxaan ku yiraahdaa wuuna siin karaa laakiin dawlad nooma dhisi karo dawladnimada inaan dhisana annagaana laga rabaa yani dhowr mar oo horena yani caalamku uu muujiyay inuu garab istaagan yahay oo na taageerayo oo dawladnimada Soomaaliya inuu soo noqoto inuu nagu garab siiyo uu rabo wuu muujiyay caalamku laakiin fursado badan ayaa naga dayacmay oo hore waxaan rajaynaynaa maanta midda aan joognahay inay naga dayacmin haddii aan la yiraahdo haddii 22 sano Soomaaliya duruufaheeda gaarka uma saamaxaynin مثلا هل مثال هدان كسو قادو midnimadeeda inay ilaaliso uma saamaxaynin
laakiin inta jeer ee maxaan ku raahdaa Security Council-ka ama AU-da ama jaamacadda Carabta ama maxaa aan ku raahdaa ururka Islaamka qaraaro cad laga soo saaray oo la leeyahay midnimada iyo dalka Soomaaliya lama su'aal lama gelin karo taas ayaa sabab u ahayd dalkeena inuu na kala burburin oo na kala go'goyn dawladay imaaraday yaryar aanu noqonin laakiin inta dhiman annagaana laga rabaa inaan ka shaqeyno sidii aan midnimada u keenin hadda Soomaalida dhexdeeda ayay joogtaa in ay midnimadii iyo dawladnimadii iyo dadkeena iyo dalkeena qiimihii iyo maxaan ku raahday micnihii oo caalamka ka lahaa inaan soo celino waa hawl noo taalo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan sida mas'uuliyiinta kale ee dalka oo dhan waxaan ku dhaaranay kutubka quraanka gacanta u saaray in aan ilaalinayno saddex waxyaabood oo muhiim ah saddexda dalka dadka iyo diinta inaan ilaalinayno ayaan ku dhaaranay marka mid walba saddexdaas qaybood macno gaara iyo muhiimad gaara ayuu ugu fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed iyo jiritaankeeda intaba dalka hal la ilaaliyo waxa kamid ah midnimadiisa hal la ilaaliyo dalka hal la ilaaliyo waxa kamid ah magaciisa hal la ilaaliyo yani dadka iyo noloshooda iyo qiimahooda iyo waxooda iyagan waa goonigood annagu marka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u taagan tahay sida ku cad yani mushkiladaha Soomaaliya ay qabto iyo baahida Soomaaliya hal la liist garay hadii la yiraahdo arrin dhamaanayso oo maxaan ku raadayay meel lagu soo koobi kara ma aha sidaas ayaa markaan isku tagnay oon doodnay dhexdeena waxaan isla garanay in ay lixda qaybood ee dokumentiga lixda tiir lagu magacaabo ku cad inay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo haddii halahaasi lagu guuleystay dawlad Soomaaliyeed oo dhab ah oo shaqaynayso adduunyada macna kale inay imaan karto yani amniga ayaa kowka ah ninkii fallaarta ay isha uga dhacday salkana uga dhacday ee isha oo aad garanaysid macnaha ay ku fadhido iyo xanuunkeeda iyo inta ay la eg tahay tee laga gooyaa markii la yiri bal horta aan fariista midda salka ku taala laga gooyo dalku fallaarta salka ku tiilay oo hal iga gooyo ninkaas uu yiri waxa ula mid ah amniga ula mid ah haddii aanan amni la helin wax kasta oo kale lama heli karo horumar iska dhaaf yani karaamo kale iska dhaaf dadka Soomaalida isu soo noqdo iska dhaaf dawladnimo hana qaada oo dalka dhan ka hana qaada iska ilow marka amnigu wuxuu noqday fallaartii salka ku tiilay asigaas ayaan marka ugu hormarinay amniga wuxuu ka koobmaa ciidan iyo hay'ado wada jira haddii marka intaasoo isla jirtaahi nidaam iyo sharci ay ilaalinayaan oo ay dhaqan gelinayaan iyo mid ayaga qabanayo haddii aanay jirin amni ma noqonaysa waxay noqonaysaa fawdo iyo muxuu ahay xoog muxuu ahay askari qori wato oo markuu muxuu ahay wuxuu rabo ama wixii la haboon asigu marka sameynay sidaasaan muhiimadda labaad waxaan u gelinay dib u habaynta iyo dib u qaabaynta garsoorka iyo cadaaladda marka garsoorka iyo amniga isla socdaahi waxaan leenahay wax badan iyo inta kale oo markaas ku soo xigsan karta oo daba joogta dalka duruufaha ka jiraahi waa midaas amniga laba ayuu u sii kala qaybsamaa midi waa mid amniga caamka ah oo dalkaanba meel kastoo aad marto booliisaa taagan waxa uu taagan yahay in amnigu sugaya midaasi waa midda caadiga amnigii la wada yaqiinay ah annagu mid baan sii dheernahay bishii February ayaa magaalada Brussels aan tagay waxaan la kulmay 27 wasiir arrimo dibadeed ee Yurub Soomaaliya iyo xaaladeedan u sharaxnay si fahamkooda uu u soo degdego oo ay ciyaar u garan karaan مثلا سي waxaan dhahay Soomaaliya maanta waxay la mid joogtaa meeshii Yurub ay joogtay 1945 dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhamaaday yaani dhinaca burburka dhinaca barakaca dhinaca maxaan ku raadayay dhaqaale la'aanta dhinaca baahida dadka haysa yaani maalintaas Yurub meeshii ay taagneed ay Soomaaliya taagan tahay waxaan ugu daray markaa laba waxyaabood oo Yurub biligaas aanay qabin
oo Soomaali ay dheer tahay oo dhibaato ay maanta qabta ayaa jirta waa arinta argagixisada iyo arinta burcadbadeedka يعني marka qiyaas marka maxaan ku marka waxaan ugu daray Yurub barigaasi kaalmay heshay wixii loo yaqaanay Marshall Planki wuxuu ku fiicnaa ku saalanaa waxay ahayd hal dal ayaa Yurub inteeda kale oo dhan kaalmeynay يعني nidaam uu lahaa iska hal meel wuxuu ka iimaanayeen hal meel ay ka socdeen taladu xoolaha waxa kulli ka socdeen hadana marka waxaan rabnaa Marshall Planki waa u baahanahay hal meelna inay ka socoto oo 27 dal aanay ka soconin talada waa u baahanahay marka arrimahaasi runtii aad iyo aad ayaguna waxay keeneen bisha September in magaalada Brussels ayada loogu qabto shir kaas oo ah bas looga hadlayo dib u dhiska Soomaaliya waxa dalalka burburay ee dagaalada sokeeye ka soo baxay ay galaan ee loo yaqaano New Deal ayaa muxuu ahay meeshaasi Soomaaliya ay ku saxiixi doontaa ugana maxaan ku raadaa qayb gali doontaa hadda waxa soo dhan markaan isku soo celino oo adduunkii kaalmadiisii aan u material u bedelno oo aan nidaam iyo institution iyo wax la taaban kara aan u bedelnaahay annaga ayaa marka Soomaaliya maanta kaalmo la'aan ma hayso kaalmada waliba waqtiyaysan oo degdega oo loola heelayahay ayay helaysaa marka aad iyo aad ayaa muxuu Soomaali u taagan tahay waxaan rabnaa dadkiinan marka Soomaaliyeed ee qurbaha joogaahi lifeline-ka ama badbaadintii Soomaaliya waxaad ka soo qaadateen qayb weyn welina waa ku jirtaan haddii ay tahay qoyska Soomaaliyeed caawa saxanka uu miiska soo saaranayo oo aad adigu qayb weyn ka tihiin haddii ay tahay tacliinta jirta haddii ay tahay Soomaaliya waxa ka jira qayb weyn ka markaan inaad xooggiina iyo caqligiina aad u weecisaan dawladda iyo dawlad dhisidda markaan inaad xooggiina iyo caqligiina ka reebtaan waxyaabo badan oo dadka qaarkiis lagu xaman jiray oo ah reer hebel hal taageero iyo koox hebel hal taageero iyo inaa markaan la joojiyo oo Soomaaliya la taageero dadka Soomaaliyeedna waxay taagan yihiin intaas annagu dawladda Soomaaliyeed hadaan nahay caalamku wixii aan ka qaban karno waa ka soo qabanay bilaha soo socda iyo bariyaha soo socdaahi waxaan ku mashquuli doonaa haddii aan la yiraahdo in aan maxaan ku yiraahdaa gudaha dalka iyo dadka Soomaalida dhaxdiisa oo aan horay u bilownay haddaad xusuusataan ama aad wada aragteen maalintii la doortay muddo kooban gudahood intaan prime minister xataa dalka loo yeelin waxaan bilaabay in aan gobolada dalka tago prime ministerka markii la magacaabay oo xukuumadii la dhisay waad garanaysaan prime ministerka inta gobol ee soo maray oo dadkii uu la soo fariistay gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale baarlamaanka iyo wasiirada dhamaantood sidoo kale muhiimadda maxay ahayd dadka Soomaaliyeed meesha ay ku nool yihiin in loogu tago lagu dhageysto duruufahooda gaarka ah wixii lagu qaban karo lagu qabto waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado warkayga waan dadaalaynaa halka hadaf aan leenahay inaan gaarno oo aan ku riyoonaynaan waa laba arimood wax noo dhaafsiisan labadaas arimood iyo wax intaas ka weyn oo aan danaynayna ama aan ku ballanay ma jirto haddii aan nahay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya waxay tahay inaan aragno Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo degan hadafka nolosha aan leenahay waa labadaas Soomaaliya degan markaan leenahay Soomaaliya amni ahaan u degan dhaqaale ahaan u degan siyaasad ahaanna u degan iyo iyadoo mid ah oo min Zayla ilaa maxaan ku raas Gambooni ilaa raas Casayr iswada haysato oo hal dawlad leh hadii la yiraahdo arintaas wax ka sokeeyo oo aan danaynayno ma jirto waxaan kaloon u haliilayno oo koox gaar iyo qof gaar waana tan safarkii hore halkan ay mid idinku dhahay wixii Soomaaliya u roonaa Soomaalida oo dhan meel kasta joogaan u roon wixii Soomaaliya u wada roonaana labadaas ku kooban yihiin aan ka wada shaqeyno hanana lagu garab siiyo in labadaas Soomaaliya ay gaarto hadii aan la yiraahdo aad iyo aad u maasantiin mar kale waa idin mahad celinayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa maasantiin